Ramadaan Kariim daawadayaal, qisadan waxaa ka sheekeeyey sarkaal ka tirsan ciidamada dalka Yemen. Wuxuu dhahay sanadkii 2016 waxaa lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah magaalada Sanaa. Waad ogtihiin muddadaas dalka Yemen xiisad ayaa ka jirtay, ururo kala duwan oo dawladda ku kacsan ayaana jiray. Wuxuu dhahay arrintani waxay ahayd bilowgii sanadkii 2016. Hoggaanka dalka ayaa amar nagu siiyey inaan waddooyinka u baxno oo aan samayno baro kontarool si loo ilaaliyo hantida muwaadiniinta iyo goobaha dadweynaha loona joojiyo qalalaasaha, gaar ahaan in si gaar ah loo hubiyo dadka wata mootooyinka. Sababtoo ah dhibaatooyinka badankood waxaa sameeya dadka isticmaala mootooyinka, qaarna waxay u adeegsadaan falal burburin ah. Mooto kasta oo waddada maraysa waa in la hubiyaa darawalka, in ruqsaddiisu sax tahay, inuu leeyahay aqoonsi qaran, lana hubiyaa haddii la raadinayo iyo in kale. Wuxuu dhahay runtii waan samaynay baro kontarool, mooto kasta oo timaadana waxaan askarta joogtay baraha kala duwan ee kontarool ka codsaday inay saf geliyaan oo mid u hubiyaan, aniguna waan la hubinayay. Markaas waxaa timid mooto ay saarnaayeen 2 qof. Kan koowaad waa darawalkii mootada, askarigu wuxuu ka codsaday aqoonsi, wuxuuna yidhi, wallaahi ma hayo, guriga ayaan ku soo ilaaway. Waxaa lagu dhahay hadalkaas ma shaqaynayo, waxaana loo yeeray sarkaalka sheekada wada, waxaana lagu yidhi, mudane, qofkaani ma hayo wax aqoonsi ah ama waraaqaha lahaanshaha mootada. Sarkaalka wuxuu dhahay waxaan weydiiyey, xaggee yaalaan waraaqahaaga iyo aqoonsigaaga? Wuxuu dhahay guriga. Waxaan ku dhahay, wac qof qoyskaaga ka mid ah si uu kuugu keeno waraaqaha, sababtoo ah suurtagal ma aha inaan ku sii dayno. Adiga iyo mootadaba waa niila xirayaa haddii aadan hadda keenin waraaqaha caddaynaya lahaanshahaaga iyo aqoonsigaaga. Wuxuu dhahay, wallaahi waxaan ahay madi, hooyaday waa waayeel, aabbahayna sidoo kale waa oday, ma doonayo inaan dhibo, gurigana waa fog yahay. Intii aan la hadlayay, qofkii la socday ayaa soo dhex galay si uu inoo dhexdhexaadiyo, wuxuuna yidhi, ilaahay khayr ha ku siiyee, wiilkaani waa madi ee iska daa. Markaas ayaan u jeestay askariga oo aan weydiiyey, qofkaani waa kuma? Wuxuu igu yidhi ma aqaano, malaha waa kii mootada la saarnaa. Waxaan weydiiyey darawalka, ma taqaanaa qofkan aad wado? Wuxuu igu yidhi maya. Waxaan ku dhahay haddaba sidee kula saaran yahay mootada? Wuxuu dhahay mootada ayaan kiraysi ahaan u isticmaalaa sida takaasida oo kale, qofkaani gacanta ayuu ii taagtay waana soo qaaday, keliya kirada mootada ayaan ka qaadanayaa, shakhsi ahaan ma aqaano. Waxaan weydiiyey qofkii mootada saarnaa aqoonsigiisa, wuxuuna igu dhahay ma wato aqoonsigayga, xaggee buu yaalaa? Baan ku dhahay aqoonsigaaga. Wuxuu dhahay guriga ayaan ku soo ilaaway, anigu keliya waan soo raacay mootoolahaan si uu ii geeyo halkaan rabo, waa degdegayaa, wiilkaana waa madi, hooyadii iyo aabbihii asaga oo keliya ayay dhaleen, fadlan iska daaya. Wuxuu dhahay waan la yaabay, haddii darawalku soo iloobay waraaqaha, kan kalena miyuu sidaas oo kale u soo baxay isagoo aan wax aqoonsi ah wadan? Sidee labadooduba u soo iloween aqoonsigooda? Waxaan ku dhahay labadiinaba waa la idiin xirayaa, saldhigga booliiska ayaana u kaxeeyey, mid kastaana ha isiiyo taleefankiisa ayaan ku dhahay. Wuxuu dhahay markii aan taleefanadooda qaatay oo mootadii la wareegnay oo aan u gudbinay saldhigga booliiska, ma aanan ku qancin labadan qof, waxaanan ku amray in mid walba uu wacdo qof u keena waraaqihiisa. Darawalkii mootada wuxuu wacay mid ka mid ah qaraabadiisa, waraaqihii waa la keenay, arrintiisuna way saxnayd, waan sii daayey isaga iyo mootadiisaba. Waxaa soo haray qofkii la socday, waxaan weydiiyey ma jirtaa cid kuu keeni karto waraaqahaaga? Wuxuu igu dhahay maya. Muuqaalkiisa wuxuu u muuqday mid shaki leh. Markaas ayaan weydiiyey askariga, ma baarteen ka hor inta aadan xabsiga gelinin? Wuxuu dhahay maya, taleefanka oo keliya ayaan ka qaadnay. Waxaan ku dhahay hadda hala baaro. Markii la baaray waxaa laga helay boorso yar oo ay ku jiraan aqoonsigiisa. Halkaas ayaan si weyn uga shakiyey, sababtoo ah wuxuu isku dayey markii hore inuu qariyo aqoonsigiisa. Waxaan weydiiyey maxaad u qarisay aqoonsigaaga oo aad u tiri guriga ayuu yaalaa? Wuxuu bilaabay inuu inkiro. Waxaan qaatay taleefankiisa oo aan bilaabay inaan hubiyo, waxaana ka helay fariimo badan oo iga nixiyey islamarkaana iga caraysiiyey oo ay u soo dirtay haweenay waayeel ah. Fariintii ugu dambaysay waxay ku dhahday, ilaahay baan kugu daayey, ilaahay musiibo ha kugu soo dejiyo, allahayow dhib baa isoo gaaray, adiguna waxaad tahay naxariis badane, waxba kaama qarsoono, iga qabo ninkaan idulminayo. Wuxuu dhahay jirkayga oo dhan wuu gariiray, waxaan rabay inaan ogaado sheekada haweenaydan oo u soo diraysay fariimo cod ah, codkeeduna muujinayo inay qof weyn tahay, waxay ka baryaysay allaah inuu asturo iyada iyo gabadheeda. Wuxuu dhahay waxaan akhriyey fariimihii hore, waxaana fahmay in ninkaani uu internetka kala xiriiray gabar maskaxda ka xanuunsan. Gabartu waa qof weyn laakiin maskax ahaan yar, waxaana fudud in la khiyaano ama laga faa'iidaysto. Wuxuu kala hadlayay taleefanka, wuxuuna ka codsaday inay sawiro iska qaado iyadoo qaawan, iyaduna way fulinaysay dalab kasta oo ka imaado xaggiisa, waxayna u dirtay sawiradii iyo muuqaaladii ay gacanteeda iskaga duubtay iyadoo amarkiisa fulinayso. Markii uu ogaaday in ay ka soo jeedo qoys sumcad leh, wuxuu bilaabay inuu ku handado sawirada iyo fiidiyowyada khaaska ah ee uu ka hayo. Gabadha si toos ah uma uusan handadin, wuxuu ku yidhi iigu dhiib taleefanka hooyada, wuxuuna la hadlay hooyada, wuxuuna ku dhahay waxaan hayaa sawiro iyo fiidiyowyo gabadhaada ah, wuxuuna u diray qaar ka mid ah. Wuxuuna ku handaday inuu faafin doono magaca qoyska iyo halka ay degan yihiin haddii aysan siin lacag.
hooyadii miskiinta ahayd waxay ka bariday inuu asturo, waxay ka baqaysay fadeexad iyo in wiilasheedu ogaadaan oo ay dhibaato dhacdo. waxay soo qaaday dahabkeedii si ay u siiso, wuxuuna ku yidhi ku dhaaf albaabka hortiisa, anaa ka qaadanaye. wuuna iman jiray oo uu ka qaadan jiray halkaa. mar kale ayuu ka dalbaday lacag iyo dahab, waa uu ka qaatay wixii dahab iyo lacag ay haysatay ilaa ay waxba aysan kala harin. way ooyi jirtay habeen iyo maalin ilaa ay u dirtay fariintii ugu dambaysay ee ay ku ducaysanayso in Allah ka qabto. sarkaalka markii uu ogaaday arrinta ayuu wajahay ninka, wuxuuna ku dhahay arrintan maxaa ka jiro. in uu inkiro ayuu isku dayay, balse uga dambayntii wuu qirtay. isla markaana wuxuu tirtiray dhammaan sawiradii iyo fiidiyowyadii ku jiray taleefanka, wuxuuna ku sameeyey dhammaan foormaat. kadibna sargaalkii wuxuu yidhi waxaan wacay haweenaydii, waxaana u sheegay in Ilaahay uu aqbalay ducadeeda. ninkii waa la qabtay, wax walbana waa laga tirtiray. ayaan ku dhahay haweenaydii. waxay tidhi ma doonayo in carruurtaydu ogaadaan si aysan arrintu u weynaan, laakiin waxay codsatay in dahabkii uu ka qaatay loo soo celiyo. waxaa lagu qasbay inuu soo celiyo dahabkii uu ka qaatay, waxaana loo gudbiyey xeer ilaalinta sababtoo ah wuxuu qariyey aqoonsigiisa, balse lama furin dacwad ku saabsan sawirada si gabadha sharafteeda loo ilaaliyo. sarkaalka wuxuu yidhi subxaanallah, boqolaal qof baa nagu soo maray baraha kontarool ee aan joognay, balse Ilaahay ayaa qadaray in qofkan la qabto si uu u fashilmo ducadii haweenaydiina Ilaahay uu ka aqbalay. halkaani waa dhammaadka qisadeena. nabadgelyo.